qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalo madaxda gobolka cagaaran ee Gabiley oo maanta telefishinka caalamiga Kelson oo mikrofoonka la dhex qaaday ayaa waxay aragtiyo kala duwan ka bixiyeen isla markaasina ay siyaabo kala duwan uga hadleen kulankii dhex maray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Engineer Faysal Cali Waraabe oo uu helinayo madaxweynaha Khaatumo Cali Khaliif Galeed hadaba dadweynaha reer Gabiley oo aragtiyooda ka dhiibanaya ayaa hadalladooda ku bilaabay Faysal awalba waxa xisbi mucaarida xukuumadda kama mid ahayn odayga Cali Khaliif Galeedna waxa hadee oday Khaatumo oday iyo Khaatumo aad u falxun weeyaan in la kulmaan nin isagiiba saaran kaaray niman xorriyad ba haysan niman tiisiiba ay cuslaysay nin madaxtooyadiisii dhinacyada cisho walba ay qarxayaan oo wasaaradii maaliyadda la qarxiyo tii arrimaha gudaha la qarxiyo albaabkii madaxtooyada la qarxiyay la kulankiisu qiimo oo ku fadhiyaan jirinba kan uu kaga qayb galay president Faysal Cali Waraabe oo kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Faysal Cali Waraabe nin qadiyada Soomaaliland aad ugu dheer buuxa nin aanu ka filaynay muu ahayn inuu shirarka Soomaaliyeed loogu qabanayo president inuu ka qayb galo iyagoo qacmays haysta shaashadaha soo istaagan oo wax bulshada Soomaaliland ay Faysal ay la ka filayeen marka hore Soomaaliland jabka Faysal way ka weyntaay waa wax dhiig baa loo galay waa loo dagaalamay wax laba shilin de maanta sida bulshadu ay leedahay shilimaad u soo qaatay wax laba shilin lagu tilmaamo ma Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Faysal Cali Waraabe uu ku tagay shirkii Brussels ee uu kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horta marka xaqiiqda laga hadlayo bulshada aan la marin habaabinay Faysal Cali Waraabe xukuumadda lagu ogaa Faysal markastoo xisbigiisa wareejiyo xukuumadda cid ku wareejiso iyada haddana dib uga furmuroojisa Faysal in badan baa isagoo arrimaha Soomaaliya aad uga hadlay la arkay haddaba waxa isweydiin leh xilliga mowqifkii Faysal isbedelay waa wax bulshada in la fahamsiyo baahan bulshadana in la marin habaabiyo ma aha anagu Faysal xukuumaddan ku ogay maanta inta ay xisbiyada kale lagu eedeyn jiray dawladda Soomaaliya ay sameeyeen lahayn dalka laftiisa xataa ma imanaya xarakaadkan ka badan baa la dareemi lahaa laakiin waxa leenahay baroortoorgiga ka weyne xukuumaddu daaha dabadeeda ka soo baxdo si cad umada si cad ha isku baraxdo xukuumaddu Faysal xukuumaddan ku ogeyn xukuumaddu dimuqraadiyadda Soomaaliland ka jirta dadka inay lafjabka ku yihiin kamid ayuu Faysal kamid yahay qof 20 sanadood u dambeysay soo taagan xisbiga gudoomiye ka marna musharax ka qarankan waxa uu ka iibsamilaayay kamid kulankii uu la yeeshay madaxweyne Farmaajo oo aanu haysanay Engineer Faysal Cali Waraabe inuu ahaa nin muwaadin ah oo reer Soomaaliland ah oo muwaadinimadu ay ku weyn tahay in qaldayaan oo Soomaaliya ka mid intay la kulmaan dani waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Shubah muuqaal maqalka caalamiga Kelson TV gobolka cagaaran Gabiley